برنامجك وكسر وهاب مقعد صباح أنا عبد السعد العدل أنا كوبا قاعد أركاوي ما شاء الله عبد الشيد كسر برنامج سواء وكله سواء شو رسم كويدين وسنة وسعتها واحد سكتة قف لويس وينك يالان مدحيس وحدقها كسرية قف مدحيس عقيس بوكو يالان مدحيس وحدقها كسرية مدحيس وحدقها كسرية مدحها سرية فرعون تصنعين كلام ما يانو أيه كعلي سواء شمر لغات واحد سكتة قف لويس وينك يالان مدحيسنا oo xidigaha ka sareeyo xidigaha madaxa sareeyo xidigaha hooseeya madaxa sareeyo waa qofka diyaaradda saaran ma umaleynaya may wali ma sigin su'aasha hadaan ka bedelo su'aasha labaad waxa sheegtaa xayawaan ku nool adduunkan oo lagu yeero magaciisa saddexan saddex magaca saddex magac baa lagu yeero oo saddexan su'aasha ma garanayo taana waa garawey su'aasha saddexaad waxa sheegtaa wax dadku ay jecel yihiin markay helaan ay ka cararaan dadku waxay jecel yihiin markay helaan ka cararaan سؤال ما قرن قرينا كل سنة أيوة كل سنة كسر برنامجك بسم الله الرحمن الرحيم كله هاي برنامجكم مقعد وصدحان مقعد وصدحان ومن سلمان محمود من كسر برنامج وكله هاي ولا لا سؤال كودينا وحيد على أساسية هاي واحد شكتها قف قبر مقعد قبر الصومالية مقعدة أو صدق حرف كوكب أنت ضبح حرف صدق وحري وحيوان ددقة oo hilibkiisa la cuno afarta dambana waa dhiig la kala qaato qof markuu dilo waa toddoba xarfood gabar magaceeda saddexda hore waa xayawaan dadiga oo hilibkiisa la cuno afarta dambana waa dhiig markuu qof dilo laga qaato hadii aan isku dayo magacaas aan baaro su'aasha dan kugu celiyo mar labaad waxaad sheegtaa gabar magaceed oo toddoba xaraf ah saddexda hore waa xayawaan dadig ah oo la cuno afarta dambana waa dhiig la kala qaato qof markuu dilo hay gabadha magaceedu waxaan maleynaa inay tahay Saacdiyo ma sha Allah qofkii labaad barnaamijkan su'aashaas asiga waxana leedahay hadiyad magacaygu Musalman Maxamuud sidee maxaad dareemaysaa waa farxad baan dareemayaa barnaamijka soo aragtaa barnaamijka waxaan ka heer ay ku talaabsadeen dhalinyarada gobolka Sool magaalada Laascaanood kusoo barnaamij waa ku dhawaad magacaaga saddexan magacayga Jamaal Nuur baa la yiraahdaa Jamaal kusoo barnaamijka waan ku dhawaad waxaan ku weydiinayaa su'aal haddii su'aasha ay sibtid hadiyad aad leedahay aad iyo aad waan ku qanacsanahay qof sheekhnimo ka muuqata tahay marka diinta dhinaca diinta aan ku weydiinayaa aad iyo aad waxaad sheegtaa asxaabiga kaliya ee magaciisa quraanka lagu xusay asxaabiga kaliya ee magaciisa quraanka lagu xusay waxa weeyaan Umar bin Khattab may waxa weeyaan Abu Bakr Siddiq may su'aasha dan ku bedelo su'aalkan ku weydiiyo waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofkii kaliya uu gacantiisa ku dilay qofka uu gacantiisa ku dilay wallahi min kama yataf hormina garmayano وكما سمعت دو برنامج waan ku dhawahay walaal magacaaga saddexan magacaygu waa kaltuun cawil cali kaltuun kusoo dhow barnaamij waan dhawahay walaal su'aal bal weydiinaya su'aasha hadaa sibtid hadiyad baa leedahay sax waxaad sheegtaa laba xisaab marka la isku daro 101 tahay marka la kala jarana ay tahay 101 waxaad sheegtaa laba xisaab markaad isku dartid 101 tahay marka kala jartidna 101 laba xisaab way ii jartay taas mid kale ii su'aalkan ku bedela waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofku gacantiisa ku dilay nabi maxamed qofku gacantiisa ku dilay waxaad sheegtaa haddaan su'aasha ku bedelo waxaad sheegtaa nabiga qofka kaliya ee magaciisa asxaabiga kaliya magaciisa lagu sheegay quraanka Sayd bin Haris gabadhaasna waxay noqotay qofkii afraad oo ku guuleystay hadiyad lagu celi magacaaga walaal magacaygu waa Fartuun Cawil Cali maxaad ka leedahay waxaan leeyahay barnaamijkaada iyo doon soo dhaweynaya kusoo dhow barnaamijka ku dhawaad magacaaga saddexan Farax Maxamed su'aal baan ku weydiinaya hadda su'aasha ka jawaabtid hadiyad baad leedahay haye weydii waxaad sheegtaa xayawaan ku nool adduunkan oo lagu yeero magaciisa saddexan kaama garanaya ma garanaysid waxaad sheegtaa qof adduunkan ku nool oo lugihiisa dhulka yaalaan madaxiisuna uu xidigaha ka sarreeyo
waa askariga waa askariga say ku noqotay dee waxay digiisu garbaaysa suuqayda madaxiisana wuu sareeyaa maasha Allah waa wasibtay jawaabta magacaaga nagu dhali farax maxamed waxaad noqotay qofkii barnaamijkan saddexaad ee ka kusoo dhow barnaamijka waldhowe magacaaga saddexaad xawa cabdulla muuse xawo su'aal baa lagu weydiinaya su'aasha haddaad ka jawaabtid xadiid baad leedahay haye waxaad sheegtaa asxaabiga keliya ee magaciisa qur-aanka lagu xusay garanayo waxaad sheegtaa asxaabiga keliya ee magaciisa qur-aanka lagu xusay si kor waaba si jawaabta u dhowdahay hala baqin sayid ibn khalafin sayid ibn xaarid zayd bin xaarid waa saxsantahay qasantahay si fiican barnaamijka ka qayb barnaamijka xalada wanaagsantiin magacaaga saddexan khadar cabdi ismaaciil khadar su'aal baa la weydiinaya su'aasha haddaad ka jawaabtid abaalmarin aan ku siinaynaa haye waxaad sheegtaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qofkuu gacantiisa ku dilay Nabi Muhammad qof ma dilin nebi maxamed qof buu dilay qofkuu gacantiisa ku dilay qofkaas laga rabaa أنا هذا وسيلة ما عزت المستين هذا أنا أقول مش دم بيسكت maya nebi maxamed qof buu dilay gacantiisa ku dilay waana hal qof keliya ومحو كده ده منك مدينة عاي maya diinta muu cayne sabab buu ku dilay ee sababtaas noo sheeg ما قرنا يعني منك مدينة عاي usoo dhow barnaamijka waan ku dhawaay waxaad isku dayday inaad dhahdid kantay atay if kantay atay why can't you tay atay like kantay maxaad tiri ku socoli waxaad dhahdaa kantay atay if kantay atay andamayo kantay atay if kantay atay why can't you tay atay like kantay if kaatay if way kaatay atay ku socol hada su'aasha if kaatay atay if kaatay if kaatay atay waxaad sheegtaa ku soo dhow barnaamijka waan ku dhawaay magacaaga saddexan maryam faarax maxamed maryam waxaan ku weydiinaya su'aasha hadda ka jawaabtid hadiyad baad leedahay waxaad sheegtaa laba xisaab marka la isku daro ay 1,000 tahay marka la kala jarana 100 ay tahay barnaamijka aad baan ku dhawaynaya waad ku mahadsantahay